Kooxda sportiska Caafi ee ka dhisan degmada Wadamagoo ee gobolka Saraar ayaa u qabatay munaasabad ay ku maamuusayaan tababaraha kooxdaasi Abdikariin Siidani oo ku mutaystay sida fiican ee uu maamulay muddadii uu joogay kooxdaasi waxaana xafladaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Wadamagoo oo ugu horeeyo maayirka degmada Wadamagoo Abdikariin Axmed Iile Baradho isuduwaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee gobolka Saraar mas'uuliyiinta sportiska gobolka iyo sidoo kale agaasimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Wadamagoo waxaana xafladaasi sidoo kale kala soo qayb galay dhalinyaro haween iyo haldoorka degmada Wadamagoo mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa dhamaantoodba uga marakacay asida kooxdani uga dhex muuqatay bahda sportiska degmada Wadamagoo gabagabadiina waa halkaas shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiyay macalinka naadigaasi iyo maayirka degmada Wadamagoo isuduwihii munaasabadaasi kala soo qayb galay waxaana halkaasi laga dhawaaqay in naadigaasi laga bedeli doono magacii hore ee Caafi isla marhaantana ay ku ciyaari doonaan magaca hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee gobolka Saraar dhanka kale naadi ka socday magaalada Caynaba ayaa galabnimadii kula ciyaaray koob degmada Wadamagoo ee gobolka Saraar waxaana guud ahaanba xafladaasi iyo koobkaasi ay ku soo dhamaadeen jawi degan kamida degmada Wadamagoo